السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena hayaanka bulshada. maanta waxaan la wadaagayaa muuqaal ku saabsan sida ugu fudud ee loo samaysto account ama konto ChatGPT. ChatGPT waa caqli istinaaciya ama caqli gacan ku samaysa oo dunida aad u qabsaday mataqaana sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan aan ku jirno. waana arrin muhiim oo dhalinyartu inay ka faa'iideystaan. waxaan la wadaagayaa siyaabo iyo farsamooyin aad iyo aad cajiib u ah oo noloshiina tiina mataqaana shakhsiyeed iyo tiina waxbarasho labadaba ina caawinaysa. laakiin marka ugu horeysa talaabada ugu horeysa oo aan qaadano hadda waxa weeye horta inaan samaysano koontadii. dabadeed baan waxaan ka wada hadlanaa sidii aan baahiyaheena ugu xalisan lahayn anagoo isticmaalana caqliga gacan ku samayska. talaabada koowaad waxaan halkan ku qoranaa Chrome-kaaga imaanaysa kadibna waxaan ku qoraysaa ChatGPT. asagaaba horey kuugu soo saaraya kadibna waxaad leedahay click. wuxuu ku soo saaraya website-ka ugu horeeya ee ku soo baxaya ayaa ah kan saxda ah. loogadaasa u saaran ChatGPT baa ku qoran, hoosna waxaa ku qoran chatgpt.openai.com. openai waa shirkadii soo saar. ChatGPT-gana waa caqliga gacan ku samayska ee aan isticmaali doono magaciisa. okay, marka waxaan ku dhufanayaa click ayaan siinayaa. wuxuu ii soo qabtay page-kan wuxuuna i kala dooransiiyey laba siyaabood aan ku bilaabi karo, macnaha ku geli karo. haddaan account horey u lahaa waxaan leeyahay login oo ah gelid ah. haddii aan horey aanan account u lahayna wuxuu siinayaa option kale ama doorasho kale oo ah inaan account cusub samaysto. marka sign up haddaa maqashid waa inaa account cusub hadda aasaastid. haddaa login maqashidna waxa weeye inaad gashid. marka sign up baan ku dhufanayaa. kadibna wuxuu ii soo saarayaa page-kan. wuxuu leeyahay create your account, samee accountigaaga ama koontadaada samayso. marka waxaan samayn karaa siyaabo kala duwan. haddaan Google account aniga horey baan u lahaa ama Microsoft account aniga hadda weli malihi, oo Gmail-kan accountiga aan ku isticmaali doono ChatGPT-ga malihi, sidoo kale Apple malihi. laakiin adiga waxaa laga yaabaa inaad leedahay. aniga marka wuxuu kala siinayaa inaan saddexdaas mid un doorto kaan leeyahay ama aan email-kayga isticmaalo. email-kayga halkaa gelinayaa, kadibna continue baan leeyahay, kadibna password-ka aan isticmaalaya ayaan gelinayaa, kadibna saasaan ku wadaya. laakiin anu ma rabo dhibaatooyinkaas oo dhan inaan maro. waxaan sameynayaa continue with Google. maadaama aan Google account leeyahay waxaan leeyahay Google account-gaygaan kusoo samaysanaya. kadibna Google account-ga oo qodobka koowaad ayaan ku dhufanaya. wuxuu ii soo saarayaa Google account-gayga keliya. haddii adiga Google account kala duwan aad leedahay waa dooranaysaa. haddii uusan halkan kuugu jirin Google account-ga arabti inaad ChatGPT ku samaystidna waxaad leedahay use another account. kadibna wuxuu ku soo qabanayaa page-kii aad geli lahayd, kadibna waa galaysaa. laakiin aniga maadaama uu kan ii soo qabtay account-gan keliyana aan Chrome-kan ku isticmaalayo, asaga ayaan ku dhufanaya. page-kan ayuu ii soo saaray. wuxuu leeyahay first name, magacaaga hore, last name, magacaaga dambe, iyo birthday-gaaga. okay, waa siinana. first name waxaan ka dhigayaa tusaale. marka last name iyo waxaa malihi baan leeyahay. wuu iga diiday. last name waa layga rabaa. tusaale noqo ayaan ku qoray. halkaana waxaan ka dhigay 1990 kowdii bishii koowaad 1990. kadibna wuxuu leeyahay verify your number. marka wuxuu leeyahay waa inaad mataqaana numberkaaga aad xaqiijisaa. aniga marka numberkayga isticmaalayaa. marka waxaan gelinayaa numberkayga. kadibna wuxuu ii soo dirayaa code-kan wuxuu igu soo dirayaa WhatsApp ama wuxuu igu soo dirayaa numberkayga caadiga oo SMS ahaan buu igu soo dirayaa. aniga laakiin waxaan dooranayaa inuu SMS igu soo diro. kadibna code-kii lagu soo diray iyo halkaa gelinaysa. marka wuxuu ku soo saarayaa tips. markaad saa akoonka u samayso wuxuu ku siinayaa ChatGPT tips for getting started. wuxuu ku siinayaa tips ama farsamooyin fudud oo ku sahlaya inaad ChatGPT-ga la jaan qaadid maadaama aad ku cusub tahay. wuxuu ku leeyahay ask away, waxa weydiisa hab weydii, wax weydii. ChatGPT can answer questions, help you learn, write code,
brainstorm together and much more. wuxuu ka ChatGPT ka caawinaya buu leeyahay inaad su'aal weydiisid oo uu jawaabo ka siiyo, inuu wax ka caawiyo aad barataan kala luqado kale. wuxuu ka caawinaya code hadda programmer tahay ina code-ka iyo waxyaalaha sida loo qoro ayuu ka caawinaya. ina brainstorm together ina labadiina su'aalo aad weydaarsid oo mataqaana maskax toojin aad sameysay ayuu ka caawinaya. sidoo kale waxyaalo badan oo uu halkan ku soo koobi karin ayuu ka caawinaya. marka wuxuu leeyahay don't share sensitive information. sensitive information waxa laga wadaa tusaale kale card numberkaaga, passwordadaada, waxyaalo noocaas oo kale ah hala wadaagin ChatGPT. sababta waxa laga yaabaa ChatGPT-ga history buu yeelanaya ayna tusi doono hadhow markaan gudaha u galnay ama waxyaalaha xogta aad gelisay su'aalaha aad weydiisid wuu kaydinaya hadda u ogolaatid. marka xogtaas lagu keydiyay ChatGPT oo accountigaaga lagu dhex keydiyay waxa laga yaabaa qof ChatGPT u shaqeeya inuu fiiriyo oo mataqaanaa sababta waxay rabaan in ChatGPT-gooda ama caqligan istinaaciga gacan ku samayska waxay rabaan inay sare u qaadaan. marka su'aalaha la weydiiyay qaabku uga jawaabay waxyaalaha cabashada waxyaalahaas oo dhan baa laga yaabaa inay baaraan. marka waxa laga yaabaa inay accountigaaga imaadaan adigoon ogeyn kadibna ay xogtaadii baaraan. marka qof bini aadan hadduu xogtaa gacanta ku dhigo waxa laga yaabaa bini aadan wax walba ka suurtoobe inuu dee falfal xumo intuu la imaado waxyaalaha aan loo baahnayn isku dayo. saadaradeed ChatGPT wuxuu kaaga degayaa maadaama company ay yihiin ha gelin xog muhiima sensitive xog macnaha xasaasi ha gelin. arrimaday waxa weeye la raadraaci karo oo la heli karo adigana ku saameyn weyn kugu yeelanaya ha gelin. okay baan leenahay marka waxa weeye waa ku maasan tahay soo jeedintaada. casharka ku xiga waxaanu ku tusi doonaa haddii eeba idmo sida loo weydiiyo wax walbo aad doonaysid sida loo weydiiyo ChatGPT. su'aalaha maskaxdaada ka guuxaya yacni halka aad u baahan tahay inaad heshid waxyaalaha internet ka raadin lahayd halkan ayaa ka raadinaysaa. haddii Englishkaagu fiican yahay ama Carabi aad taqaanid aad buu ku anfacaya. haddaa arday tahay luqad baranaysid aad buu ku anfacaya. haddaa programmer tahay saan soo sheegnayba oo codes aad qoranaysid tusaale kale code akhad ku aragtay kala rabtaa inaad safidid wuu ka caawinaya. haddaa marka waxaad doontay bar waxyaalo badan baa weydiinanaa oo muhiima oo maskaxdiina runtii يعني مسكح ورير إنه كريدة دانا هدي لهم سيد عقل كان وعجيب وياهي أو باهينا كفايدستان مرك هدي له هدم مقال كان مقال هذا كل حاجة سيف عن ولا الصعدة سيد كلنا كفايدست إن شاء الله خير إيه وناك بإنرجنيا والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.